ninka Shiinaha ugu qanisan Jack Ma oo hantidiisa lagu qiyaaso 39 bilyan oo dollar ayaa wuxuu yiri haddii aad daanyaro hor dhigto lacag iyo muus daanyaradu waxay dooranayaan muuska maxaa yeelay ma garanayaan in lacagtu ay goynayso in ka badan muuska hortaala haddii sidan si la mid ah ku samayso dadka qaar wad kala dooraysiiso ganacsi iyo mushahar bilaa oo shaqo gaar ah lagu qaadanayo badankoodu waxay dooranayaan shaqada bilaha ah sababtuna waa iyagoon garanayn in ganacsigu ay keenayso lacag ka badan tan mushaharka bilaha oo noloshooda gebi ahaanba bedelaysa kana dhigaysa tujaar waa run in mushaharka bilaha uu ka ilaalinayo faqriga balse sidoo kale wuxuu ka ilaalinayaa inaad hantiilo noqoto weligeena maan arkin inta noolaa qof shaqeeyo 8 subaxnimo ilaa 3 galabnimo oo noqday qani Jack Ma oo in badan dhiirigeliya dhalinyarada ayaa goobo badan oo fagaara intaas ka jeediyay